قومية عيل qoysna loo kala daraaqada wixii duulay oo qamar haweeney caruur qoorta laga gooyay oo qaabka loo lumay ragana cid qiyaasayn hantidana qasaaraha ku dhacay qaafil garanay oo lagu qaandhabay oo la qurub ninkiisii oo kii qirtay oo qisaas qaamkii galay oo qaawin dhiig iyo dilbelena lagu qayraash oo qarafna loo iibsadiyo duur la qabadsiyo oo qiiqa ooradu cirka qabatay oo dhaaf oo qarixi eeraan ka dhacay loo qabsaday raage oo qabaal reeraha guftay qalab wixii yaal qadila iyo midka soo qabtada waaya lagu qowlay oo gaalka qaysku tolimo uga qaboobaado oo la dhacay quraan ruuga iyo qaniga eedoobi qusur madaxa loo gelisay ay wax uga qaadaan oo meel qarsoon iyo god baa lagu qidaadaa qabaahiiro meel laga qaxay qabi u haysteen qod aboor ku yaal bay sidii noo qurquriyeen oo qawdi naga yeedhay baan wali qarweynaa ingiriis boqorriga Suways maalin laga qaadi kantaalada qarxa lagu ridiyo qalabka waaweyn laga qoosay meesha laha qaada kaligaay nin kasto qab weyn goorun baa qoysa la odhan sida qarandidii foorartay qadarka nooga ninkan madaxa qaadin oo dhaxsuu qool u galayay qam dariiran goortaan tagnayna lagu qaadleeyay in qowraarin dheer iyo halgaad qaarka kala duul markaan qaabo qoysayn la galay qaar iskaga weyn qandaraaskii soo oodan iyo qaarkii berigii dad qabaansi qayb kala dil iyo reer biyo oo qaadis umbajiidka qaaroonintii qaalibaan nahayd iyadoo midda lala qarxay oo qadnuhu liir iyadoo in badan loo quturay qaabka loo maray xisbigii isqola faadhin jiray weerar lagu qaadi iyadoo qasaaraba ka dhicin qaybtii laga saari qoraansigii baa indhaha ka soo galay laga qabay halku qabaxsan jiray dhiig la soo qubay ishi weer ku quusaa bartii qaydkii weliyaan nin raggiis ku qooqay xumaan qaalib oo iman kun yar socodna weeyaan nafsigu kii wax qabayo kaydkeeda gabadhii qoftay qabaxsatay food qoortay martidu qaabishay qada u weydaan awal buu raggi qarad madhayo qaaliga ahaay way qaran dumeen heerihii ugu qorroonaay qoyskooda mooyee nafluhu qara yaraadeen qoorta maxaa lagaga ridi waa qalfoof madhan qaabkii hore ismaamuliya kii qaxaba keenay qiimayn wadaniyeed ma gelin inuu ku qowlaay cabdi quba wuxuu been qoftalay qaabkii socon waayey nimankii qaboonada ku degaya kursiga qaata nimankii qadaad riixi jiray ruuxu waxaan qabinba nimankii dadkay qalan hayaan qoob xirka u haysta ee culimadii qaawiyey qaadidii iyo sheekha nimankii shareecada qadfee qayska garab taagay nimankii qubuuraha ka jaray quudka iyo soorta qaynuunka aadmiga kuwaan qaybna kala haysan goortii la soo qaabilay qunuga yaaceen ku qamaare maantaa waxay qaadan karayeen inkastoo nuqaarkiina maray qayb ka garanayn qowsaaradii kala tagiyo qoonkii labi luud iyagoo qalboogtama hayay kor u qayuubteen qambaruursigii bay waddada shalay la qaadeen weji qaawan oo qaan qaba iyo nala qardhaafeen nin kastoo qab weyn goorun baa qoysa loodhaan sidii aadankii qurux adduun qaafil ka horbooday dhib ninkii qalqaalaa isaga yuu ku qaanbixi qaanqaantii laga saydh caqliga qaafilka ahayd markaasuu mustafa u galay mustafa kolkaa tilmaansiiyey wuxuu yidhi mustafaan qur'aan iyo xadiis qaari ku ogaay isagana tilmaan qeexan baan qaada leeyahay ha qalloocin iilkaad qodaa wuu ku qaansugi nin qaynuun yaqaanaa sharciga waa qadariyaay qowlkii ilaahiya runtuu qiimo geliyaay shahaadaduu qiri intuu qirada raacaay qaabkii salaadaha la farayuu u qumiyaay sunnahana intuu qaabiluu qunu dhegaystaay qoddaduu u daadagan intaan kaba qarsoonayn qasiraadna kuma maamushiya qaba qaraarsaar qarankuu ka yeelaa waxay qaba yidhaahdaan qiso timidna qoodhiya rag buu qayb ka geliyaa qaraabada ma diidiya naflaha soo qareensaday qowlalada ma buuxsaday intuu qaato keligii qaanse looma soo dhiibay iyo leeb ku qoofalan reer yurubna qaabkay wataan way isku wada qoole qoladeennu waa qodax mudiyatay ku soo qaban qoys weeye soomaali aan qaanna kala hayn waa qolo walaalaa markaan dib u qiyaasnaay qaarkooda badan way ogyihiin qaradla mooyaan waa kuwa gumaysiga qoqobay qaarba meel dhigay waa qodob sireed iyo xukuma waxay u qaybsheen qarbigaana laga diidan yahay qooda soo gale ku qabso iyo ka qaadiyo dilkiiyo qayladiiyo yoom qalalaasadaa lala rabaa inay qaxaan uun qoonkii islaamana kufrigu waa qadirayahay ma qadarisa gaalada hadday qoonku la hadlaan qiimayn waxaan nahay sidii qaabka falastiin mar haddaan sharciga qayb ka mida kaaga rogay qaydka haw qabyaaladayn aadamaha adi lagu qaaday giddigoodba waa quruxsigiiyo qani adeerkaae midkaad qaabishaayuba adiga yuu wax kuu qaban qoondoqoondo kaba weydid iyo qaar qarribanuun qanciyo ujeeddada u sheeg qaabka lagu guuray deeqdan qiyaaslii u sii waa qabow dherega ha ka yeelin qoysqoyska iyo reerka naga qaado
haddii kale wixii kii qarribay yaad qarka u fuuli aniguna waxaad qalin dhowdaa oo qabyo aan sheegi insha allahna meel qaayalay kaala wada qaadi markaasuu haddana ogaadeenku wuxuu weligii soo doori jiray waanadeeda ugu soo degtay soomaalida ogaadeenku ugu soo degtay markaa wuxuu iyo qarnigii hore aynaga tegey odayadii qoyska qabanqaabaday soo mareen ee qodada dheer ra'yigoodu wuxuu qabay xornimo inay ku qaataan halyadoo malyuumaad qabtiyo weliba qoorgooyo hadba qayrabkeenni kacana qaar la deganaysay ma qadarin ilaahay inaan qaadannaa horay qasna weligii waynugu jiriyo qaar maroorsanay ra'yigana waxaa qaadan jiray kii qumanunuune ma qabsoonin hawshaan lahayn qaa'im weligeen qabyo weeye eegana halkay weli qandoodaay qarribaadna kama dheerin iyo qaar la duubsaday qurumaha shisheeyana dantoodu waa u qoriguule qunqumada shidaalkay rabaan inay badh qaataan qalbiga iyo tilmaantay wataan qoonay ka xadaan qortolka iyo mindhaaheeryaday qaar u daydayaan hayna kala qolaynina si aan qayrkeen ula gaadhno qasgooyada hillaaceen arkana waa daruur quban qurbac iyo midkay nirig dhashaa waa wixii qoran waynu qaadan doonnaa in badan qurubkii raaraay insha allahna wiinoo qadimi eebbahen qani إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى هذا وحكة وقبي كان